kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel walba adduunka ka joogtaan waxaad kusoo dhawaataan muuqaal cusub. Muuqaalkeena waxyaabaha aynu kusoo qaadi doonno waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha gaar ahaan kubadda cagta. Sheekooyinka aynu eegi doonana waxaa markaasi ka mid ah halka ay wax marayaan maadaama Cristiano Ronaldo uu ku dhawaaqay inuu isaga tegayo Manchester United kuna wargeliyay saddexda kooxood ee durba la xiriiray CR7 ayaan soo gudbin doonaa. Sidoo kale tababaraha cusub ee Manchester United Erik ten Hag oo kooxdiisa ku wargeliyay xidiga uu doonayo in uu bedel uga dhigo Cristiano Ronaldo haddii uu baxo. Waxaan sidoo kale eegi doonaa Arsenal iyo Manchester United oo ku tartamaya saxiixa xidig ka tirsan kooxda kubadda cagta Bayern Munich. Raheem Sterling oo ay u badan tahay inuu u guuri doono magaalada London ee caasimadda waddanka Ingiriiska, halka ay mareyso sheekadii uu ugu biiri lahaa Chelsea iyo xidiga reer England oo la ogaaday laacibka uu ka iibinayo gurigiisii. Waxyaabaha kale waan eegi doona saaxiibayaal waxaa ka mid ah Mohamed Salah oo la ogaaday kooxda uu qarka u fuulay inuu ku biiro kahor inta uusan xidiga masaaridu markaa aqbalin qandaraaska waqtiga dheer ee uu kusii joogaya Liverpool. Sheekooyinkaas iyo wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga xidigaha ayaynu eegi doonaa daqiiqadaha soo aadan, balse intaanan bilaabin muuqaalkeena waxaan idinka dalbanaynaa in aad like inoo saartaan muuqaalkan oo aad sii gudbisaan. Saaxiibada nagu cusub ee markii ugu horreysay na soo booqdayna waxaan leenahay soo dhawaada oo subscribe inagu dhiirigeliya. Mahadsanidin. Sheekooyinkeena saaxiibayaal waxaynu ka bilaabeynaa Cristiano Ronaldo oo markaa shalay ku wargeliyay kooxdiisa kubadda cagta Manchester United inuu isaga tegayo oo warkaasi adag markaa ku tuuray suuqa xagaaganna uu rabo inuu isaga dhaqaaqo garoonka Old Trafford. Ayaa haddaba waxaa la ogaaday saddexda kooxood ee sida degdega ah uga howlgalay arrimaha Ronaldo ee Manchester United. Ronaldo ayaa sanad ka hor kaga soo biiray dhinaca kooxda Talyaaniga ah ee Juventus naadiga Manchester United, iyadoo la filayay in waayihiisa ciyaareed ee dambe uu mar kale guulo ku gaari doono naadiga Red Devils. Waqtigu sidii uu filayay uguma fiicnaanin, waxaana booska lixaad ay kaga dhameysatay Manchester United kala sarreynta horyaalka Premier League kala ciyaareedkii dhammaaday, halka aysan sidoo kale gebi ahaanba wax koob ah tartan u gelin. Jaridda The Times ayaa shalay markaasi xaqiijisay in Ronaldo uu markaa ka codsaday Manchester United in ay iska fasaxdo haddii ay ku hesho dalab ku wanaagsan oo ay ku qanacdo. Dhinaciisana suxufiga ciyaaraha ka faalooda ee la yiraahdo Whitewell ayaa sheegay in Manchester United aysan dheg u dhigin doonista Ronaldo, isla markaana haatan aysan dooneyn inay iska iibiso. Waxaa jira warar kale oo sheegaya inuu doonayay 37 sano jirkan inuu ka hayaamo garoonka Old Trafford suuqii Janaayo ee bilowgii sanadkan, balse la baajiyay. Haddaba wargeyska la yiraahdo The Athletic ayaa waxa uu warbixin ka qoray saddexda kooxood ee ilaa iyo haatan hadal haya Ronaldo, kuwaasoo uu ku sheegay inay kala yihiin naadiga Chelsea oo Premier League Ingiriiska ka ciyaarta, Bayern Munich oo waddanka Jarmalka ah, iyo naadiga Napoli ee ka dhisan waddanka Talyaaniga. Chelsea ayaa suuqa ugu jirta bedelka weeraryahan Romelu Lukaku oo amaah kaga baxay, halka Bayern Munich ay raadinayso bedelka Robert Lewandowski oo la filaya inuu ka dhaqaaqo kuna biiro Barcelona. Napoli qudheeda ayaa doonaysa ciyaaryahan weyn oo markaa ku hogaamin kara koobab, iyagoo sidoo kalena ka ciyaari doona tartanka UEFA Champions League. Marka saddexda kooxood ee doonaya Ronaldo waa Chelsea, Bayern Munich iyo Napoli ilaa iyo haatan inta laga warhayo. Isla wararka Ronaldo ayaa saaxiibayaal ku guda jirnay. Tababaraha cusub ee kooxdaasi Erik ten Hag ayaa ku boorin doona baa la leeyahay Manchester United in Cristiano Ronaldo bedelkiisa ay u keenaan ciyaaryahan markaasi weerar ah oo da'yar. Ten Hag waxa uu Manchester United ka dalbanayaa in loo keeno weeraryahanka Ajax ee reer Brazil ninka la yiraahdo Anthony oo 22 sano jir ah, haddii weeraryahanka Portugiiska ah ee 37 sano jirka ah ee CR7 markaa loo ogolaado inuu baxo xagaagan. Jaradda Sunday Mirror waxay warinaysaa in Ten Hag uu Manchester United ka dalbaday in loo keeno Anthony oo 22 sano jir ah haddii CR7 oo 37 sano jir ah loo ogolaado inuu baxo xagaagan. Wararka kale ee suuqa kala iibsiga xidigahana waxaa ka mid ah jaradda Mail Online waxaa markaa ay warinaysaa in Manchester United ay wanaajisay oo ay sare u qaaday dalabkii Arsenal ay ku doonaysay daafaca la yiraahdo Lisandro Martinez, iyadoo Ajax u bandhigtay sida uu warinayo wargeyska Mail Online 38 milyan oo ganiga sterlinka ah oo ay ku doonayaan daafacan dhexe reer Argentine. 24 sano jirkan daafaca ka ciyaara ayay Manchester United doonaysaa inay kaga adkaato Arsenal, waxaana ay gudbiyeen dalab ka sarreeya midka Gunners ay ku doonaysay Lisandro Martinez.
dhinaca kalena kooxaha Arsenal iyo Manchester United ayaa sidoo kale ku dagaalamaya saxiixa xidiga garab weerarka Jarmalka ee la yiraahdo Serge Gnabry. 26 sano jirkan ayaa markaa kaga bixi kara kooxda Bayern Munich ee wadanka Jarmalka lacag lagu qiyaasaya 40 milyan oo ganiga sterlinka ah. xidigii hore ee Gunners Serge Gnabry ayaa qandaraaskiisa kooxda Jarmalka ee Bayern waxa uu ku egyahay xagaaga soo socda. Jaradda Star Sunday ayaana sheekadaasi qoreysa. dhinaca kalena wargeyska la yiraahdo Sunday Sun ayaa warinaya isaguna in Serge Gnabry uu noqon doono bartilmaameedka ugu sareeya ee kooxda Manchester City ay ka dooneyso suuqa haddii markaa ay iska iibiso weeraryahanka reer England ee Raheem Sterling oo 27 sano jir ah. suuqa kale iibsiga xidigaha ee xagaagan, wargeysku waxa uu leeyahay Sky Blue ama City waxaa markaa ay dooneysaa in Gnabry ay ka dhigato bartilmaameedkooda ugu sareeya oo ay markaasi soo iibsanayso haddii ay iska gado weeraryahanka reer England ee Raheem Sterling suuqa kale iibsiga xidigaha ee xagaagan. Sterling ayaa saaxiibayaal u muuqda in uu qorsheynayo in noloshiisii Manchester City uu soo gabagabeeyo, iyadoo ay jiraan warar sheegaya in uu markaasi ka xaajoonayo inuu iska iibiyo gurigiisii uu halkaa ku lahaa, iyadoo uu ku iibinayo 4.5 milyan oo ganiga sterlinka ah. Sterling ayaa markaa doonaya sida warbixinadu ay tilmaamayaan in gurigani uu ka iibiyo xidiga Liverpool ee Trent Alexander-Arnold. daafaca midig ee xulka qaranka England Trent Alexander-Arnold ayaa la rumaysan yahay inuu ka guuro koonfurta magaalada Manchester sida laga soo xigtay jaradda la yiraahdo Daily Mirror. 23 sano jirkan ayaa haatan ku nool isla wadadii uu ku noolaa saaxiibkiis Liverpool ee Alisson iyo ciyaaryahanka qadka dhexe ee Manchester United Paul Pogba. waxaa la rumaysan yahay in Arnold uu wada xaajood kula jiro Sterling isla markaana uu kala hadlayo sidii uu uga iibsan lahaa gurigiisa ku yaala Cheshire, taas oo sii hurinaysa wararka la isla dhex marayo ee ku aadan in weeraryahanka Manchester City iyo xulka qaranka England Sterling uu ku wajahan yahay caasimadda Ingiriiska ee London. wadahadalada u dhaxeeya Chelsea iyo City ee ku saabsan Sterling inuu u wareego garoonka Stamford Bridge ayaa si weyn u xoogeystay maalmihii la soo dhaafay, waxaana isu soo taraya kalsoonida laga qabo in heshiiska la gaaro oo dhawaan lagu dhawaaqo. Sterling ayaa qarka u saaran in uu Chelsea ugu biiro heshiis 4 sanadood ah, iyadoo markaa kula wareegaysa lacag lagu qiyaasay 45 milyan oo ganiga sterlinka ah. City iyo Chelsea ayaa wadahadalo joogto ah ka yeeshay xidigan heerka caalami ee wadanka England kaasoo dhaliyay 130 gool 337 kulan oo uu saftay 7 xilli ciyaareed ee uu joogay garoonka Etihad Stadium. kooxda Chelsea oo horey ula xiriirtay City ayaa si rasmi ah u doonaysa saxiixa Sterling, waxaana ay rabaan in la soo gabagabeeyo heshiiska dhamaadka toddobaadkan. dhinaca kalena saaxiibayaal waxaa la ogaaday weeraryahanka kooxda Liverpool ee Mohamed Salah kooxda uu ku dhawaaday ee uu qarka u fuulay inuu ku biiro ka hor inta uusan saxiixin heshiiska waqtiga dheer ee uu ku sii joogay garoonka Anfield. wargeyska la yiraahdo Sunday Sun ayaa warinaya in weeraryahanka masaarida ee Mohamed Salah uu isku diyaarinayay inuu dib ugu laabto kooxdiisii hore ee Chelsea ka hor inta uusan weeraryahankan 30 sano jirka ah aqbalin heshiiska cusub ee waqtiga dheer kaasoo ka dhigay ciyaaryahanka ugu mushaharka badan taariikhda kooxda Liverpool. haddii uusan heshiiskaas aqbali lahayn, wargeysku waxa uu leeyahay Salah waxa uu dib ugu laaban lahaa kooxdiisii hore ee Chelsea. dhinaca kalena saaxiibayaal kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa xalay niyad jabisay kooxda Manchester United kadib markii ay sheegeen in aysan wax niyad ah u haynin in ay ka iibiyaan United xidigooda qadka dhexe ee reer Holland ee Frankie de Jong. inkastoo bartilmaameedka koowaad uu u ahaa Manchester United muddooyinkii ugu dambeeyay xidigan 25 sano jirka ah ee de Jong. Manchester United ayaa awoodeeda isugu geysay sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahayd Frankie de Jong, laakiin hadda waxay u muuqataa in Barcelona ay ka cagajiidayso inay ka iibiso ciyaaryahankan isla markaana uu sii joogi doono garoonka Camp Nou, laakiin waa inuu ogolaadaa inuu mushaarkiisa dhimo. geesta kalena ninka la yiraahdo Nicolas Tagliafico ayaa la filayaa in uu ka tago xagaagan kooxdiisa kubadda cagta Ajax, iyadoo Brighton iyo Lyon ay ka mid yihiin kooxaha xiiseynaya saxiixa daafacan reer Argentine ee 29 sano jirka ah, sida uu warinayo suxufiga ciyaaraha ka faalooda ee Fabrizio Romano. ugu dambeyntiina kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa diyaar u ah inay u ogolaato weeraryahankeeda reer Holland ee Memphis Depay oo 28 sano jir ah in uu kooxda kaga tago adduun dhan 25 milyan oo euro oo u dhiganta 21.5 milyan oo ganiga sterlinka ah.
jaradda AS ee wadanka Spain ayaana sheekadaasi qoraysa. waad ku mahadsan tahay inaad nala soo gaartay ilaa gabagabada muuqaalkeena. waxaan ku xusuusinaynaa inaad like inoo saarto muuqaalkan, taasoo dhiirigelin inoogu filan. waxaan ahay Haarun Yuusuf Qasaare. intaan muuqaal kale dib ugu kulmayno, sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.